golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa guddi u saaray qaraarkii xukuumadda ka soo baxay 6 bishan ee la xiriiray Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Faafahinta warkan waxaa inoo diyaariyay wariyaha arrimaha baarlamaanka warbaahinta qaranka Ibrahim Guudle Isaaq. ajandaha kulanka mudanayaasha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxa uu ahaa qaybinta hindis sharciyada ilaa hadda la soo gaarsiiyay golaha shacabka iyo sidoo kale ka doodista qaraarka golaha wasiirada ee 6 Sebtembar sanadkan 2017 kulanka oo ahaa kalfadhiga labaad kulankiisa 17aad isla markaana ku furmay 178 mudane ayaa gudoomiyaha golaha shacabka ugu horeyn waxa uu xildhibaanada u sheegay in ilaa iyo hadda golaha la soo gaarsiiyay 11 hindis sharciyeed oo ay soo gudbisay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wixii hadda ka dambeeya oo kalfadhigan ka harsan aan golaha loo soo gudbin karin hindis sharciyeed kale sida uu qabo xiroosaadka golaha shacabka waxaana sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka oo mudanayaasha golaha u sheegay in la gudagalo ka doodista qaraarkii golaha wasiirada ee 6 bishan sida 40 iyo qodobka 42 ee xiroosaadka uu qabo guddiga joogtada intaas ku soo koobay wixii sharci ah dambe hindis sharciyeed dambe ay keento xukuumadda waxa loo dhigayaa kalfadhiga saddexaad xeerka wuxuu qabaa in labada bilood ugu horeysa golaha uu furay yahay kaliya la keeni kara hindis sharciyeedyada oo laga doodayo saadaradeed wixii maanta ka dambeeya sharci kasto ay keenaan waxa dib loogu dhigayaa kalfadhiga saddexaad si waafaqsan qodobka 42 ee xeer hoosaadka golaha shacabka. intaasi kadib mudanayaasha golaha shacabka ayaa gudagalay ka doodista qaraarka golaha wasiirada ee 6 Sebtembar oo ay mudanayaasha aragtiyo kala duwan ka qabeen. marka aniga horta go'aanka xukuumadda ay soo saartay waxaan u arkaa go'aan sax ah ka turjumayo amniga iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed inuu yahay u arkaas ninkaas haddii magnow la siiyo haddii la yiraahdo arrintiisa laga hadlo shacabku uu dartiisa loo gumaado mas'uuliyad uu gumaadino waa in laga hadlaa baarlamaanka uu ka hadlaa lana keenaa muxuu meeshan oo laga hadlaa way haddii kala ahayn waxaan u arkaa arrin siyaasad laga wato shacabka Soomaaliyeed amni u baahan yahay waxa la waxa ciidamada shisheeye maxaa u keensanaa anaga waxaan u keensanay nimanka qawaajin ugu soo dhaxday inay qabtaan waa in ninkaas wuxuu ahaa kuwa aan raadinayno arrintan nimanka in hortaalla waa arrin Soomaaliyeed laakiin waxa hay'adaha ku shaqada leh in la aamino ayaa wanaagsan arrin baa dhacday arrintaas baarlamaanku wuxuu leeyahay dariiq loo maro gudiyadii ku shaqada lahaa hal la aamino hal loo dhiibo waxa ay keenaan dabadeedyadu cilmiyeysan laga doodo ayaan qabaa anigu imika lana information hoose oo badan oo aan la haynin baa jira xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shacabkeeda iyo hoggaanka dalka oo madaxweynaha jamhuuriyadda ah iyo hoggaanka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed way yaqaanaan way u doorteen way ku kalsoon yihiin way raacsan yihiin wayna aaminsan yihiin waxaa daliil u ah go'aankii kan ka horreeyay ee xukuumaddu qaadatay oo ahaa arrinta qaliijka taariikhda ayaana cadaynaysa waxa la soo gudbiyay iyo inaan cidna kama waadsanayn ka dal jeclayn marka waxaan ka digaa in laga fiirsado in siyaasadda looga faa'iideysto in ama shakhsiyaad target gareeyo ama la isku dayo qalad kasto dhaca in shacabka lagu mararhaabiyo in lagu baabiyo qalad waa dhici karaa in la saxaa loo baahan yahay ma ka shaqeeyeen dadka barnaamijyada abaabulaya in qalad saxaan kama shaqeyn waxay ka shaqeeyeen in shacabka magaalada jooga ka cashaan shacabka Soomaaliya ka cashaan shacabkan ila kiciyane dawladda fara badan soo dumiyo ogtiin xalna uma haysin hadii shacabku kaco shacabka anaga hagna shacabka inuu naga ma hadii lagu hago xumaan iyo in la burburiyo madaxda qaranka in lagu daranay kii yimaada Brito isagoo dalka maamuli karo waxaan ku soo koobayaa taladan gudoomiye anigu waxaan qabaa in guddi loo saaro waa qabaa guddigaas inuu ka yimaado 3 guddi oo hawshan ay khuseyn karto waa qabaa ma qabo in dad ka baxsan inta lagu daro in guddiyadaas ay hawshaas qabtaan oo la soo xulo waa qabaa guddiyadaas waxaan qabaa dadka laga soo xulo guddiga aan xulanayno in shaqadooda ay ahaato 2 shay ka hore waxa weeye inay qiimeeyaan go'aanada xukuumadda inay qiimeeyaan oo arrinta maanta noo taala ah waxaan kaloo qabaa inay soo baaraan heshiisyadan la leeyahay qabiil u saxiixnay iyo anigu goobjoogan ahaa iyo xagga ahaa iyo in la baaro
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalle Cawad ayaa golaha ka hor sheegay in ay jiraan warbaahinno warar been abuur ah ka faafiya golaha shacabka wuxuuna tilmaamay in aan loo dulqaadan doonin in warbaahintu ay meel kaga dhacdo sharafta golaha shacabka sharcigan ay la tiigsan doonaan xildhibaanada sharafta leh iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan cadaynaynaa warbaahintu runtii waxa weeye qayru mas'uulnimo aad iyo aad u weyn bay ku dhaqmayaan website-ka la yiraahdo caasimadda waxa la anagu ma naqaan iyo meel ay degan yihiin iyo meel laga helay waaba dacweyn lahayn kuwaas waxay soo qoreen dibadbaxayaal hortagay xarunta baarlamaanka federaalka ah oo rasaas lagu kala eriyay walaalayaal rasaas baad maqasheen waxa weeye waxaas waa cambaaraynayna wax walba oo ay ku hadlaan ciddii guddigii warfaafinta ku shuqulka leh qoladan isgaarsiinta ku shuqul leh oo wasaaradda isgaarsiinta ku shuqulka leh waxa weeye warbaahintaas in tallaabada sharciga ee ku habboon laga qaado weeye shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedna maalin walba been laguma marin habaabin karo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana beeninaynaa warkaas gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kulanka soo xiray ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay isdejiyaan oo ay ku kalsoonaadaan golahooda shacabka isla markaana ay ka feejignaadaan wararkan xaqiiqada ku salaysaneen oo ay faafinayaan sida uu sheegay dad aan raali ka ahayn dawladnimada Soomaaliya waxaan ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka sheegay in qaraarka ay maanta ka doodeen xildhibaanada golaha shacabka guddi gaar ah loo saari doono dhammaan shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mar labaad aan ku celiyo arinta tani waa idin maqalnay baarlamaankii alxamdulilah mahad ilaahay alee golaanu leenahay oo shuruuc baanu leenahay aan ku kala baxno wixii la toosinayo iyo dhammaan la dejinayo haloo daayo kuna kalsoonaada wakiiladiina xildhibaanadiina golaha shacabka idin fadhiyo insha Allah ayadan xal ayaan ka gaarina laakiin dibadda hala joogo gudaha ahaato hala ilaaliyo xasiloonida hala ilaaliyo yaana la dhageysanin kuwa beenta shubay meelahaas wax ku qorqorayana iska ilaaliya haddaad baantaan telefoon noo soo dira na waraysta website-keena aada laakiin waxaan taroorka hadda sida uu gudoomiye ku-xigeenka labaad uu sheegay waxyaabaha noocaas oo kale dadka dibadda jooga oo qurba joogta ah way ku laabkacayaan way sii kicinayaan waa marin habaabinayaan maanta waxaa intii isqortay xildhibaano intaasay ku ekeed doodiina waxaan rabaa inaan xildhibaanada xusuusiyo qodobka 56 faqradiisii 5 oo oranaysa gudoomiyaha golaha shacabka asagoo la tashaday ku-xigeenadiisa waxa uu magacaabaa guddiyo u xilsaaran in ay qabtaan howlo gaar ah warbixintoodana u soo gudbiyaan gudoomiyaha golaha shacabka si loo horgeeyo golaha shacabka saa daraadeed waa guddigii baan dhisi doonaa ilaa berito waan ka shaqaynaynaa sabtidaan idin keenayaa guddiga iyo xilkooda iyo magacyadoodana waa idin soo sheegi doonaa haddii la yidhaahdo saa daraadeed waad ku mahadsantihiin shirkan waa noo xiray Ibraahim Gudle Isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.